ra-iisul wasaare xasan cali khayre ziyaarada uu ku yimid dalka sacuudiga shalay waxay ahayd mid si fiican loogu soo dhoweeyey isagii wafdiga la socda. shalay markuu aeroboort ka soo degay ra-iisul wasaaraha si fiican ayaa halkaa loogu soo dhoweeyey. waxaa joogay amiiro dhowr ah oo hogaaminayo amiirka mandiqadda ama gobolka riyaad ee magaalo madaxda ah ku-xigeenkiisa ah. kabacdina wuxuu shir la galay wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada sacuudiga, shir dheer oo aada loogaga wada hadlay xiriirka iyo Soomaaliya iyo sacuudiga ka dhexeeya, oo sacuudigu ay ku tilmaameen, wasiirka arrimaha dibadda uu ku tilmaamay Soomaaliya meel horumar badan uu ka socdo. waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha ay maanta sarkeen oo qasriga uu degan yahay uu ku booqday boqorka sacuudiga boqor Salmaan bin Cabdilcaziiz. ra-iisul wasaaraha iyo boqorku aad ayay isu marxabeeyeen. boqorku aad ayuu u soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha, wuxuuna tilmaamay sida uu dadka Soomaaliyeed ay ugu weyn yihiin boqortooyada iyo dadka sacuudiga. wuxuu tilmaamay sida ay Soomaaliya u tahay mid istaraatiiji oo ah amniga dalalka carabta iyo dalalka islaamka meesha ay ku taalo. wuxuu u rajeeyey Soomaaliya horumar badan, wuxuuna adkeeyey ama aada u tilmaamay in sacuudigu ay aada u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. wuxuu tilmaamay horumarka sacuudigu kaalinta uu kaga jiro nabadeynta gobolka, oo Soomaaliyana ay maaragtay qayb ka tahay. ra-iisul wasaaruhuna aada ayuu uga mahadnaqay soo dhoweynta aadka u wanaagsan, qadarinta iyo jacaylka ummadda Soomaaliyeed loo qabo muujinaysa, oo ilaa iyo markuu yimid shalayto lagu soo dhoweeyey. wuxuu boqorka uga mahadnaqay soo dhoweyntaas iyo taageeradaas. kabacdina ra-iisul wasaaraha waxaa ugu yimid qasriga uu ka degan yahay magaalada riyaad wasiiro dhowr ah oo ka mid yahay wasiirka mas-uulka ka ah sanduuqa horumarinta maaragtay ee sacuudiga, wasiir ku-xigeenka arrimaha maaliyadda wasaaradda maaliyadda, iyo wasiir ku-xigeenka ama wasiir dowlaha arrimaha dibadda oo isagu si joogtaa ula socday ra-iisul wasaaraha muraafiq u ahaa ama ninka la socdo maaragtay ahaa.